imaam Abul Xasan Cali bin Xamse oo loogu yeero imaam Al-Kazaa'i Allah u naxariistay waxa uu ahaa imaam ku xeel dheer luqadaha Carabiga, naxwaha iyo qiraa'ada Quraanka ilaa uu noqday 7 qoraa ee ugu caansan. Intii uusan baran Quraanka ka hor waxa uu ahaa arjire raacay Qowsaar ilaa da'diisu gaartay 40 sano. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo socda oo ari badan kaxaynaya hoodka dhexdiisa si uu u helo daaqsin arigiisii ayaa waxa uu arkay islaan wiilkeeda ku dhiirigelinaysa inuu aado madrasada ama xarunta Quraanka lagu xifdiyo, balse wiilkii ma doonayn inuu aado goobta Quraanka lagu barto. Islaantii waxa ay ku tiri wiilkeediiyow si aad wax u baratid una xafidid Quraanka marka aad weynaatid si aadan u noqonin sida Qowsaarkan ari raaca oo kale. Markii uu maqlay imaam Al-Kazaa'i in hadalka asiga uu ku socdo ayaa waxa uu si hoose u yiri aniga maanta tusaalahan la igu soo qaatay xagga jahliga, Allah ilaahay waa inaan wax bartaa. Maalintaa wixii ka dambeeyay waxa uu go'aansaday inuu isaga tago Qowsaarnimadii iyo ari raacnimadii. Intii yaray diyaariga ahaa oo isaga lahaa uu iska iibiyay subaxii